gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali way wehelinayeen ku-xigeenka xeer-ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland gudoomiyaasha maxkamadaha racfaanka degmada iyo gobolka magaalada Burco ayaa maanta kormeeray jeelka weyn ee magaalada Burco kormeerkani ayaa gudoomiyuhu ugu kuurgalayay xaaladda guud ee jeelka weyn ee magaalada Burco ugu horreynba waxa halkaasi gudoomiyaha uga warbixiyay habsami socodka howlaha shaqo ee jeelka weyn ee magaalada Burco taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale taliyaha xabsiga weyn ee magaalada Burco maadeen hawsheeda anagoo ku jirna hawsha xabsiguna sidii loogu talagalay ku socda wax dhibaato ah kama jiraanay wixii xaalxaal ah maxay tahay xabsiga gudihiisa ama hawlihiisa kamidana si gaar ah ayaanu hadii ilaahay ka dhigo aanu ciday khusuusay gudoomiyaasha ay khusuuso aan iyo maxay tahay xilaalinta aanu uga hadli doona hadii ilaahay ka dhigo garsoorka iyo xabsiyada waxaan leeyahay weydii soo dhaweynaynaa welcome wixii hawla inta dhaafsiisan ee hawlaha ay u socdeen ee naga dhaxeeya hadii ilaahay idmo waxaanu iyada waanu iska arkaynaa waxaanu kaga wada hadli doonaa siyaabo gaar ah imka waxaan leeyahay kaliya hawsha aanu kacnay waxa weeye soo dhaweynta iyo shaqada miisaankeeda leh ee ay u socoto waftidu oo aanu 100% soo dhaweynayno iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba maray gudoomiyaasha maxkamadaha racfaanka degmada iyo gobolka waxaanu halkan saaka booqasho ugu nimid xabsigan gobolka Togdheer iyadoo uu nala socdo uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ayna u dheereyd in habsami u socodka garsoorka guud ahaan cadaaladda ee gobolkani inuu soo indheeyo oo maxkamaduhu ka mid yihiin xabsigu ka mid yahay iyo meelaha kale cadaaladaba inuu u kuur galo oo ay u dheeraato dacwadahooga ay wadaan siga kani waa xabsi yar oo dad yar loogu talagalay waxay yiraahdaan qaar waxay yiraahdaan waa waxaan dee 100 iyo wax ka hooseeya loogu talagalay 300 baa lagu xareeyaa waa la iskor saaraa waa dhibaato ka jirta xabsiga oo duruufteeda leedahay إن شاء الله يمكن حبسي ومن ورا معنا ونقبح الدونا ولا فدام ولا فري الدونا لكن ظروفها كثيرة إمك وحقوق بدنون ضد محابس هاي سكور صارن marka ciidanka asluubtu mudane gudoomiye waxaan qirayaa inay yihiin kuwa gacanta ugu dambaysa ee maxaan ku dhahay tacabkii ay xafiiska xeer ilaalintu iyo booliisku iyo maxkamaduhu soo tabceen kolayga ugu dambeeyay ee bahalkii lagu ridayo inay iyagu yihiin nimanka gacanta ku haya gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali ayaa ka warbixiyay kormeerkiisan iyo ujeedadu daarnaa horta waxa noo sharafa inaanu saaka halkan idinku soo booqano iyadoo ay ujeedada ugu muhiimsan tahay inaanu idinku hambalyeeyno isla markaana aanu niraahno shaqo fiican baa haysan marka shaqada wanaagsan ee haysan halka ka sii wada sii xoojiya ilaahayna ha idinku garab galo maanta waxa weey ciidanka asluubta guud ahaan iyo xabsiyada gaar ahaan iyo gobolka Togdheer ba ina si fiican shaqada u wadaan marka arintaas waa ugu muhiimsan horta waa booqashadii caadiga ahayd maadaama anu gobolkii nimi xabsiyaduna waa meesha ugu muhiimsan waayo waa meesha correctionist la ilaahay lagu saxo qofkii aakhirkii xukunkiisu dhamaado xarigiisu dhamaadee la soo xukumay waa meesha lagu dhaqan celiyo ee lagu saxo wixii ka khaldamay ugu dambeyntii gudoomiyaha iyo wafdiga hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay jeelka cusub ee loo dhisay magaalada Burco